السلام عليكم dhegeystayaal ku soo dhawaada qaybtii saddexaad iyo taxanaheennii sheek halgameeda Dareemin Geerida. Ciidanka kala jabaqayna maqlin ayaan maqlaa codka dabaysha xaga ee geedaha caleemaha ka daadinaysa, isliska laamaha, cida dugaaga iyo heesaha shimbiruhu way kala soocan yihiin. Uduga manka iyo urta halaqa ayaan iyana iskaga qasnayn. Waa saacadaha aan waardiga ku jiro waxaa yimid saddexdii cawayoonta ku maqnaa oo wada in qaladin ah, xogaa sonkor ah iyo 10 biyo ah. Wixii la helaaba waa la mahadi, casho iyo shaah ayaa lagu tuuray. Dhamaajiye intaan haysta dhub la milixeeyay, dhul maxaan xoreeyaa wallaan dhibay naftaydii. Taxay duruufaha halganku ka soo faramaroojiyeen naftii hore Ismaaciil. Sideedii dambe ayay soo noqdeen, wiilashii roondada loo diray nabadgelyo ayay ku warbixiyeen, xog cadowna ma aysan keenin. Xidigii waa bari ayaa soo muuqday, suul dhabaalihii taliyihii unugta ayaa lagu wada toosay. Waaba hadii la jiifay diyaar garooba ayuu raaciyay. Amarkii samada ayaa isna shinkiisii galay, idina sama moogana. Rabbi ha aqbalay markaanu salaadii ka gadoonay ayaanu ku tuurannay qaxwo sonkorta lagu waabiyay. xubna daalida weeyo diiriyow ninku waayay wale kaama dambeeyo. xigmad carabi ayaa ahayd subaxii wuxuun liq dhagaxnaha noqdee. kama duwanin hilib geel inaanu ka durduurannay, yaana ku daalinina waanu sii daynay. unugtanadii kuradaanu qaadnay, unugtii koowaadna laagta dhuuxeeda ayay hayaan. iskuma milanno, waanu iska warhaynaa oo sheedaannu ka wada soconnaa. waxaanu isoogu nimid goobtii qorshaysnayd. taliyihii kooxda ayaa khudbad uu soo gaabiyey hortanada ka jeediyey. sidii dabciga u ahayd ma wada odhan, waxbana kama tegin. qorigiisa oo salka dhulka u yaalay, inta fardhaxada iyo murdisada si habboon ugu hantay, liifka kor u tuuray oo si halhaleela uu dhexda uga qabtay, degta saartay. digtoonow, sanka balooli, saraxa taag, naso, garab saabdab, door, joogso ayuu ku cabaaday. codkaas oo soo xasuusiyay xilligii diboogi. gaardi iyo faqla gaaban ayaan u galay, xogaa dhidid ah ayaa shax naga soo yiri. markii aanu furfurannay, inta dhowr fallaadoodna loo qaybiyey ayaanu halkii ka kala duulay. dhaawicii goobtii loogu tala gaadh cadowna ma arag. dhammaan kooxdanadiina nabadgeliyo ayaanu isku macal salaameynay. mahmaa Soomaaliyeed baa ahayd, khayr wax kaalama tagee shar u tooghay. hadda way taagan tahay, waanu raad gadanay, wax caddaynahna maanaan reebin. maxayse igu taallaa warbixinta la helaya waxay sheegaysaa in dhinac walba gaaladii ka soo baxday. qushigeeda ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa. waxayse ogyihiin inuuna saad jooqaha aan kaga dhuumanayo uusan ii oolin, oo wixii dhuuni ah aan shacabkayga u soo doonan doono hal adhi haddii aan ka maqnaado. kolkaasay reeraha isku heerheerayaan, iyagoo maanka ku haya lo dacdaa loo fadhiistaa. dhowr habeen ayaan raadgadasho iyo dhuumaalaysi meelihii ku joognay, oo aanu kolba jihadii ay ka yimaadeen u dabamaraynay. aaggan aan ku sugannahay waa dhul ka dhaca ka deg ah. waxaanu saarannahay buur dheer oo aan ka ilaashanayno gaala reeraha dul degan oo doox naga hooseeya fadhida. qiiq kolla yaraanaya kolla isballaadhinaya ayaanu aragnaa, haadina ay dul hehaabayso. naftii hore aanan hadda mid u ahaa xasuusan karin oo garabkayga fadhiya ayaa yidhi, gaaladu xoolaha markay qalanayaan dhankay u jeediyaan. markaasaan ugu celiyey, maxaad ku keentay su'aashaas? markaasuu yidhi, haadaasi waa raqay qasheen, hilibkuna dabka ayuu u saaran yahay, oo qiiqu kolka uu badanayo dabka ayay isku raacinayaan rubadana. naftii hore ilka case oo daqiiqada ka hor bilcil aan naga fogeyn xaadxaadhanayay ayaanu qosolkiisa maqalay. war maxaad soo xasuusatay? ayuu ruux garabkayga ka yidhi. nooma jawaabin. waxaanse maqlay quro dheer. aaskii ayaa madoobaaday. halkii ayaanu ku shaahkarsannay, annaga oo aan cidna u aabayeelaynin. ileen gaalo kol hadduu gabalku dhaco bogga dhulka kama qaadee. hala diyaar garoobo ayuu yidhi mas-uulkiina watay. aniga iyo 3 naftii hore waxaana la amray inayna gaaladaasi fursad u helin reerka in ay waxyeelaan oo ayna difaacooda ka bixin.
u saar adna afgafuurka sankiisa oo kaga rid wiilasha ayaa la amray wiil hoogii bari duleelka lagu haleeyay. waanu dhaadhacanay dhankii ay dabayshu u socotay intaanu ka marnay ayaanu ooda kaga qaadnay rasaas tirabeel ah oo suuqa madow u badan. ceeriyaamo iyo dhada ayaa nagu xidhatay magufaaca rooba waxba kuma duwanaa. midkanagii fooda kor u qaadana awowgii waa la gubay. xabadii gaaladu hal mar bay jalaq tiri. jirinoofkii qardhaasta xidhnaa ayaa gafuurka ka soo duufsaday oo saalbooyin darandooriha kaga naxsaday dhowr qarmuuntii. kamaanaan daahin inaanu dib u ruqaansanno oon samayno dib u gurasho xeelo dagaal. hal baaq ah ayaanu ku macalsalaamaynay wiilashii doodka saaraa. qiyaastii 3 saac kadib ayaanu isku soo majeernay. dayixii oo aan weli dhicin ayaanu dhankiisii ka soo marnay. markii hore waxaan shaanshaq ah ma aysan lahayn, eegase hunhunno ayaa hoos loo maqlaa iyo cod aad moodo ruux afka marya lagaga cufeeyey oo misana cabaadaya. waxaan si ugu malaynayaa in ay yihiin dhaawac ay tagoogaha jabisay saalbooyinkii oo carab dheer soo hurgufayay ama ay tacsheeradii hore sanbabada kala baxday. xidmahoodiina geedaha ay ku laashay oo naf xumi ku jirto welise ayna ka haadin. siday doonay ha ahaatee warkooda waa la heli doonaa si lagu ogaadaba. markan xaalku sidii hore waa ka culus yahay uuna nagu adag yahay. waxaanu afka ooga soo galnay ciidan ka diyaar garoobay oo heegan ugu jira falgaadma ah oo aanu mar kale ugu soo rogaal celin karro. khasaarihii saacada ka hor soo gaadhay oo ay bishimaha la ruugayaan tababarkii ciidannimo iyo khibradihii ay ka dhaxleen falal noocan oo kale ah iyaga oo maanka ku haya ayay difaac adag noo sii galeen. dabxidh ayay nagu sameeyeen 2 afdabayl iyo cinjirla afduub ah oo addimadu u sii fidtanaayeen iyo qoryaha fudud ee sida darandooriga u dhaca ayaa noo diiday jaanis aanu ugu yaraan ku ogaano yoolka haysta. la soco qaybta xigta iyo sheekaalgameedda dareemin geerida.